qisadani waxay ku dhacday gabar u saaxiiba qurux kana soo jeeda qoys hantiilayaal ah. waxay baratay dugsi hoose waxayna ku dartay dugsi sare kama daahin inay ku darto kuliyadda caafimaadka waxayna waxbarashada waday ilaa iyo heer sare. waxay soo martay heer dhalinyaradu isla dhex maraan quruxdeeda ragga faceedana ay farta isugu fiiqaan quruxdeeda loona kala tartamo. intaasi kadib waxay gashay xaaladii hore ka duwan oo ay ka wada hareen raggii hore waxaana saaxada jacaylka soo galay nin xaas labaad raadinaya cumrigeedii kordhay awgeed. waxay soo dhammaysatay dhaqdhaqaaqii barashada caafimaadka balse waxay ahayd xaalad ay ka mooral jabtay guur dhammaantii. markan waxaan ka ahayn dhoola caddaynta odayaal ceraystay. digtooraysada waxay ka howlgeli jirtay qaliinada dumarka iyo umusha. waxay in badan maqashay ubad hooyadoodii u dhawaaqaya oo leh hooyo hooyo. in badan bay adkaysatay balse xiiso ay u qabto awlaad bay xakameyn weyday ilmadeedii. waxayna tiri iyadoo dhawaaqaysaa qaata shahaadooyinkayga oo ku garaaca yacnii ku dhejiya derbiyada oo imaqashiya codi leh hooyo hooyo. qisadani waa mid ka timid garasho ogsoon qiimaha hooyanimada iyo helidda awlaad xalaal ah. adigu saaxiibka ama saaxiibaddaa gaarsii haa adigan imaqlaya ayaan kula hadlayaaye.